السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل أي مقال عصب كسودو بيتج waxa ku saabsan yahay muuqaalkan ugu hadlaynaa sida loo kaydiyo ama loo xafido waxa kugu jira mobilkaaga sida muuqaalada sawirada iyo dokumentiyada iyo applicationada iyo maaragtay dhageysiga waxa kugu jiraba sida loo xafido ee hawada loo dhigo waxa jira dhowr meelood oo markaas lagu kaydsado laakiin bal waxaan eegi doonaa midda ugu muhiimsan isla markaana ugu fudud ee aad isticmaali karto kusoo dhaw muuqaalka marka ugu horeysa mobilkaaga soo furto waxaad sameyn doontaa laba meelood ba markaasi maaragtay professional ugu caansan oo mobilkaagu iska leeyahay mid waxa weeyaan waa Google-ha ama Google Drive-ka sida u taqaano hadba Google Drive-ka waa meel lagu kaydsan karo wax fara badan oo maaragtay mobilkaaga kugu jira oo markaasi iskaga shuban karto halkan waxa markaasi uu ku leeyahay 15 GB oo free 15 GB baad markaasi isticmaali doontaa hadii ka buuxsamaan ama 15 kaas maaragtay waxba ku qaadi waayana waad ku dhisan kartaa oo halkan aad ka iibsan kartaa by storage ayaad markaasi oranaysaa halkan markaas waxaad ka iibsan doontaa waxaad ka iibsan kartaa 100 GB 50 GB 64 GB 230 GB ilaa 500 ilaa TB yad gaadha markaasi kolba inta doonaysa iibsan kartaa marka laakiin halkan 15 ba free aad ku isticmaali kartaa haddaba Gmail-ka ama maaragtay Google Drive-ka marka aad doonayso inaad wax ku soo upload gareyso ama aad wax ku kaydsato marka hore aad soo gasho ciwaankaaga marka maaragtay oo halkan kugu diyaarsan yahay halka yar balastaad markaasi ku dul dhufan doontaa halkan waxa ku soo dhigi doonaa folder cusub inaad samaysato upload inaad samayso scan markaasi inaad samayso ama kamarada aad ku sawirto waxa weyn halkan oo dokumentiyadii halkan waa sheetski waxyaabahan Google-aas ka wata laakiin midda ugu muhiimsan inaku لأن waxa weeyaan waa upload maadaama waxa device-ka noogu jira aynu upload gareynayno oo aynu ku shubayno imika hadii upload ku dhufto halkan waxa uu soo saari doonaa isla markaasi sawiradii ama muuqaaladii ugu jiray device-kayga halkan waa sawiro hadii aad muuqaalada doonayso koonaad ku dhufan doontaa videos baad markaasi ka dooran doontaa videos awdiyihiin waa kuwa xaqana dokumentiyadii iyo wixii baad markaasi kaga soo dari kartaa haddii imika sawirkaasi aynu eegno oo aynu niraahno waanu kaydinanaa imika kaas markaasi eegi doonaa ka WhatsApp-kan markaasi ku dul dhufan doonaa markaas aad ku dul dhufato halkan waxa uu ku soo dhigayaa waiting for wifi haddii aad wireless isticmaalayso si automatic isku upload gareynaya laakiin haddii aad data isticmaalayso waa inaad halka ku dul dhufataa si markaasi uu upload gareeyo oo uu ku shubo Google Drive-ki halkan waxa markaasi kugu jiri kara waxan aad ku shubatay intaad ilaashanayso Gmail-kaaga ama inta uu Gmail-kaaga ku xafidan yahay kaliya Gmail-kaaga aad ilaashanaysaa wax walbana halkan waad ku shubanaysaa markaasi kaama lumi doonaan device-kaagana waad ka delete gareynaysaa oo waad banaynaysaa si wax badan kugu qaado intan ay halkan kugu jirto imika waa kan sawirkan soo upload gareynay halkaas iskaga jiraya hadii mobilku lumo iyo hadii kaleba Gmail-kaaga mad xafidanaysaa halkaas aad wixii aad ku shubatay ka heli doontaa Gmail-kaagana waxaad ku xafidan kartaa dhowr meelood kulley way dheer tahay in muuqaal ka sameeyno iyadana laga yaabaa laakiin mid ugu horeysa waa inaad lambarkaaga ku xidhato lambarkaaga markaad ku xidhato hadii aad password-kaaga ilowdo waxaad ku heli kartaa lambarkaaga marka lambarkaaga ku xidho waa mid ugu muhiimsan noocyo kale u jiraan loo xafido laakiin taas ugu fudud oo qof waliba uu karaya hadii aan dhankan ka baxno Google Drive-ka waxaan eegi doonaa Samsung Cloud ama Samsung account sida aad markaasi u fahmayso halkan waxa wadiga arkaya halkan waxa ku jira Samsung Cloud 15 GB ayaa i free laakiin waa isticmaalay anigu 100% 15 GB baan isticmaalay oo wiga buuxa markaasi inaan upgrade gareyn noqonaysa oo iibsado storage cusub halkan waad arkaysaa gallery-ga waxaan ku isticmaalay 14 GB iyo 850 MB ayaan isticmaalay waxaana igu jira 4060 sawir iyo muuqaal isku jira halkan waa daatooyinkii kale maxaan ku raadey lambarada iyo waxyaabahaas halkan Samsung Cloud Drive 144 MB ugu jira qaybtan bay kamid tahay balse waxaad ku upload gareyn kartaa waxa doonto markaas aad ugu dul dhufato markaasi waxa uu si automatic ugu geenayaa fileskaagi oo waxaad markaasi doonto ku upload gareynaysaa balasta aad ku dhufan doontaa upload baad ka soo dooran doontaa waxa aad doonaysid markaasi upload gareyn kartaa imika hadii aan awriyaha ku dhufto halkan waxa markaasi uu soo dhigi doonaa wixii awriyaha ugu jiray
haddii imika suuradda ama faatixa aan is idhaahdo upload garee dhan baan odhanayaa, uploading buu markaasi sameynaya oo waxa uu dhigayaa hawada, waxa uu iga buuxaa there's not enough space in your Samsung cloud storage. marka inaan upgrade garay u baahan yahay on storage cusub isado, laakiin halkan aad markaasi ka isticmaali kartaa. waxa kale oo aad sameyn kartaa markaasi Samsung cloud in aad galerigaaga u furato oo si automatic ah waxa mobilkaaga kugu jira ay maaragtay halkaasi kugu kaydsamaan. iminka markaad galeriga san soo furto, galeriga markaad san soo furto san kugu soo baxo saddexda dhibcood ee koonaha ku dulufo, saddexda dhibcood ee koonaha marka ku dulufato settings ka sii dooro. marka ka sii doorato halkan waa kaaga soo baxaya signs with Samsung cloud ayaa halkan kaaga soo baxaya. markaasi ciwaanka aad doonayso inuu kugu upload gareeyo ayaad gashan doontaa halkan. ciwaanka markaad gashato waxa mobilka kugu jiro oo dhan si automatic ayuu upload gareynayaa. halkan markaasi waxaad ka doorantaa signs, halkan waxaad ka dhigan doontaa wifi or mobile data si markasta oo aad khadkaaga u furto ay u upload gareysmaan waxa mobilkaaga ku cusub. halkan waa albumska ama albanada aad doonayso in aad upload gareyso. iminka wadiga arkaya waxa ku jira mobilkayga oo dhan waa wada on, way u furan yihiin si automatic ayuu isku upload gareynaya. waxa yara soo galaaba hawaday tagayaan, waxna kaama lumayaan haddii mobilku kaa xumaado, haddii mobilku kaa lumo, haddii ciladay kaa gasho. kaliya ciwaanka ama gmailkaaga sumaad haysanaysaa, browserka aad doonto intaad gasho ayaad waxa halka ka download gareysan kartaa ama daatadii ama xogtii aad haysatay, kaamana lumayaan. marka sidaasaad isticmaali kartaa oo labada qaab baad markaasi u adeegsan kartaa inaad kaydiso waxyaabaha kugu jira device-kaaga ee kaa buuxinaya mobilka si uu storage badani kugu banaanaado. Google Drive-ka iyo Samsung Cloud labadaasaad isticmaali doontaa. haddaba waxaad samayn doontaa Samsung Cloud kulli wuxuu kaaga baahanaya ciwaan gaara oo kan Gmail-ka ma aha, ku kala markaasi u samaysan doontaa. setting-ka markaad soo gasho qaybta accounts-ka kaalay, accounts markaad ku dhufato accounts-ka ka sii dooro, dabadeedna halkan waxaad ka sii dooran doontaa markaasi add plus ama add account baad ka sii dooran doontaa. dabadeedna waxaad samayn doontaa Samsung account baad ku darsan doontaa. wadiga halka arkaya hadda anigu igu jira Samsung account baad markaasi ka dooran doontaa oo ciwaan u samaysan doontaa oo gelin doontaa si markaasi Samsung Cloud-kaasi oo kugu shaqeeyo oo xogtaadii waxa ugu dhan halkan kugu kaydsamaan. hadda anigu waa 100% buuxa, laakiin adiga inaad wax badan isticmaalin baa laga yaabaa markaas wixii kugu kaydsamo si fudud. marka labada meelood baad isticmaali kartaa Google Drive iyo Samsung Cloud oo labadaba ku upload gareysan karto waxa la waxaad jeceshahay oo markaasi kugu jira device-kaaga, wala muuqaalo, wala sawiro, wala dhageysi, wala dokumentiyo, wax walba wadiga arkaya. imika halka dhageysi baa ku jira, waxa kale oo ku jira sawiraan. halkan Google Drive waxa ku jira sawiradaas maaragtay waxa doonto ayaad markaasi gashan doontaa oo device-kaaga ka buuxiyay. xaggaana intaad ka saarto ayaa halkan kugu jirayaan markaasi oo ayna waxba ka buuxinin. ciwaankaaga mad xajisanaysaa oo markaasi ilaashanaysaa. labada qaab baan jeclaan lahaa inaad ka faa'iidaysato oo aad u kaydsato waxa kugu jira mobilkaaga. aad iyo aad baad mahadsan tahay. like iyo share tan ugu dhiirigeli oo nagu soo biirsan muuqaalo fara badan u soo sameyno. wassalaamu calaykum.